quruxdaada iyo jirkaaga ayuu rabaa wiilka astaamahan leh. Wiilasha qaar waxay leeyihiin astaamo aanan fiicnayn. Qaar ka mid ah astaamahan maanta kula wadaagi doono waa kuwa raba keliya quruxdaada iyo jirkaaga. Astaamahan badankood waa cilmi nafsiga ku dhisan aadmiga. Waad qurux badan tahay, soo jiidasho jismi iyo mid indhaha lagu qabowsado ayaad leedahay. Isaguna intaa ayuu arki la'yahay. Wuxuu u baahan yahay keliya taa inuu kugu danaysto. Isku mid maaha ragga oo dhan. Waxaa laga yaabaa noloshaada inay ku wada jiraan laba shaqsi iyo ka badan, haddana aadan garan karin midka dhab ahaan kuu jecel iyo mid kaa raba inuu kugu danaysto ama uu jirkaaga u baahan yahay. Dhab ahaantii ma jeclaan in sidaa lagugu sameeyo adiga. Soo maxaa kuu diidaya muuqaalka inaad si degan u dhammaysato aadna soo saarto qofka daacadda ku ah? Hana ii sheegin in la kala duwan yahay, waayo waan ogahay qaarna inay aad u wanaagsan yihiin, qaarna ay yihiin kuwa xun. Walow tan aan caddayn karin inay adiga ku haysato iyo in kale, laakiin waxaan kuu sheegi karaa in haddii ay jiraan dhacdooyinkan ay tilmaan u tahay inaad ku jirto waqti dhammaysi iyo dan duni. Soo aan guda galno muuqaalkeena maanta. Muuqaalka like si uu gaaro saaxiibo badan, sidoo kalena nagu soo biir haddii aad nagu cusub tahay. Qodobka koowaad, had iyo jeer adiga bis ayaa raadiya. Qofka marka uu ku jecel yahay ma awoodo inuu wax badan kaa maqnaado, wuxuuna inta badan awoodda saaraa siduu kuu kasban lahaa. Adiga haddii aysan maalinta ku soo wicin, waa mar ama laba jeer ay ku soo wacaan dadkaas. Laakiin qofkan adigaa raadiya inta badan, inkastoo iyaguba ku soo raadin karaan oo waqti qaar way dhici kartaa inuu ku soo waco, laakiin sabab la'aan kuma soo wacayaan. Almuhiim waa inay jirto sabab uu kuu baahan yahay adiga. Hadba adiga markaad wacdo maxaa dhacaya? Qodobka labaad, wuxuu kula hadli doonaa ereyo soo jiidasho leh, kuwaas oo uu arki karo inay bedeli karaan dareenkaaga. Laakiin hubanti tani waxay dhacdaa habeenka oo keliya, maalintiina kuma mashquulin doono. Ma ogtahay waxay ku kala duwan yihiin midka ku jecel iyo kan danta kugu wata. Midna habeen iyo maalin uma kala socno, wuu ku soo wacaa waqtiguu doono, laakiin midka danta kugu wato keliya wuxuu ku soo wici doonaa habeenka oo keliya. Qorshihiisuna waa inay dareenkaaga beddelaan si ay u helaan waxa hadafkooda, iyagoo meel iska dhiga wixii alla xarimay. Inta yar ee shaydaanku qurxiyey ayuu ku farxaa, wuxuuna raadiyaa ereyada iyo waxa ku habboon si uu u beddelo dareenkaaga. Waxaa intaa dheer in waxyaabaha dareenka muujiya aysan raagayn, yacni hadduu fariimo yahay markiiba wuu tirtiraa markuu kuu soo diro kadib. Jacaylka dhabta ma qiimeeyo jirka, mana qiimeeyo qofka quruxdiisa, laakiin midaan jacayl kuu hayn kalama jeclo, wuxuu doonaa ayuu samayn doonaa. Qodobka saddexaad, muuqaalkaaga ii soo dir. Marka ay isticmaalaan ereyo dareen kicin kara ama xitaa ugu yaraan uu isku dayo arrinkaas, kadibna hadalkooda waxaa ku xigi doona muuqaal sidaa iyo sidaa ah ii soo dir. Run ahaantii dhallinyarnimadu waa wax cajiib ah. Qofka noloshiisa oo dhan waxa ka horeysa waa inuu falo xumaanta. Isma laha waxaas waxaa ka dhalan kara caro Ilaahay. Haddii aad isku daydo inaad diidane, waxay isku dayayaan inay kugu qasbaan. Haddaad ku adkaysatana, waxay kugu bootayn doonaan inay kaa tegi doonaan, iskana daa ha tagaan. Si kastoo aad u jeceshahay, xitaa haddii aad u samayso wuxuu rabo, joogi maayo maalin uun. Waayo qof mustaqbalkeedii adkaysan weyday, waxa kale uu kula joogo meesha ma yaalaan. Xiriir wuxuu jiraa inta aad is ilaaliso oo aad mustaqbalkaaga iyo diintaada aad xijisato. Dumarka qaar ka mid ah waxay u maleeyaan in tani ay tahay wax iska kaftanaa oo aan wax sidaa u saamayn ahayn, laakiin maxaa xiga mataqaanaa? La soco muuqaalka. Qodobka afraad, ila kulan. Sidaas ayaad tahay, sidaas ayaad u qurux badan tahay, waan kuu baahnaa, ii imow iyo wax la mid ah ayuu ku dhihi doonaa. Waan ogahay inaad isweydiinayso sidaan waxaan ku ogaaday, laakiin waa baaris cilmi nafsi ah oo ay baareen khubro cilmi nafsiga ku dheereeya. Dhalinyaraha waxaa sidaan yeeli kara waa da'diisa. Haa, waxay u maleeyaan inay tani iska tahay wax iska ciyaar ah, laakiin waxyaabo kale ayaa ka dambayn doona. Maxay tahay sababta ay u kulmayaan laba qof aan isqabin? Macquul inaad jacayl wadaagtaan, inkastoo iyada xitaa aysan wanaagsanin, laakiin haddii aad og tahay qofkaas inuu wanaagsan yahay, waad la kulmi kartaa dabcan. Laakiin qof aad intii hore ku soo aragtay haddana aad la kulantay, koley Ilaah unbaa yaqaana wix meesha ka dhici doono. Marnabana kulama talinayo inaad la kulanto
qof aad ku soo aragtay dhammaan arrimaha aan kuu sheegay, waayo halis ay kugu tahay. Kulanka laba ayaa loo qaybiyaa, mid waa mid xaafad ama waa mid uu ku dhihi karo xaafadda iigu imow, midna waa mid caadiya ama casriya ama qado ama waa meel qurux badan oo indhaha iyo qalbiga ay ku doogsadaan. Kuwaasna waa wax iska caadiya, laakiin meel gaar ah igula kulan caadi maaha. Qodobka shanaad ahna qodobkii ugu dambeeyay, xaafadda ayaan joogaa, ma ii imaanaysaa? Kadibna xaafadda inuu joogo sabab ay kuugu sheegayaan maxaa waaye, sheeko yar ayaan idinkaga sheekeynayaa. Gabar ayaa maalin la kulansaneed wiil ay isla socdeen, jacaylna inuu kala dhexeeyey ay sheegtay. Wuxuu u soo diray lacagtii gaari-raaca ahayd, laakiin markii ay imaatay xaafaddii, warbixintan oo dhan ayada ayaa nooga sheekaysay wixii halkaa ku qabsaday oo dhan. Qofkii ay rabtay ayaa soo dhaweeyey, cabitaan ayaa la siiyey, cabbaar ay sheekaysteen. Xoogaa kadibna 5 wiil ayaa qolalka guriga hal mar ka soo wada yaaceen. Cajiib! Iyadoo suuxsuuxaysa ayay aragtay oo cabitaankii ayaa wax loogu daray. Waa gabar yar, laakiin nasiib wanaag ogaalkeed toos uma tegin. Waa ay qaylisay intii ay awoodi kartay, waxayna isku dayeen inay afka ka qabtaan, laakiin Ilaahay mahadiis deriska ayaa ku soo baxay oo albaabka ayaa xoog loogu garaacay. Xitaa markii lagu galay guriga waa ay qariyeen gabadhii, laakiin mid ka mid ahaa ciidaha oo arkayay gabadha marka ay sii galaysay guriga ayaa sheegtay waxa ayna dadkii halkaa ka sii heleen caddeen kale oo sheegi karta in gabadha guriga ku jirto, taasoo ka mid ahayd kabteeda mid ka mid ah oo ku jirtay meel laab ah. Sidii loo raadinayay ayaa la helay, markaas ayaana bannaanka loo soo saaray. Haddaba waxaad ii sheegtaa, gabadha yar misna mustaqbalka leh may awooddaa 5 qofood in ka badan inay kufsadaan? Waxaan idinku sheegayaa maaha inaan idinku dirayo jacayladiina. Jacayl waa shay qurux badan, laakiin dadka ayaa si kale u beddelay. Gabaray, haddii aad dareento wiilka inuu ku jeclayn misna ku dhaqmaayo arrimahan, hadba qaad tallaabooyinkan. 1. Haddii aad xiriirka u jari karto, u jar. 2. Hadday ka hadlaan arrimahaas ku dheh lama ogola, waxaa iga daa. 3. Haddii ay dhacdo inaad kulantaan, horey u kaxayso asxaabtaada, gaar ahaan kuwa aad ku kalsoon tahay. 4. Haddii aad hesho xog ku saabsan inuu dad badan kuula wado, u jar xiriirka. 5. Haddii aad adiga ka shakisan tahayna, hubi. Hadduu sidaas yahayna ku jar, waayo faa'iido ma laha. Guur xalaala insha Allah. Muuqaalka maanta intaas ayuu ku eg yahay. I hope inaad ka hesheen, like garin doontaana muuqaalka, kuna soo biiri doontaan kanaalka. Intaynu midkiisa kale ku kulmayno, nabadgelyo.